wiilkan yar muxuu qasayaa maxaa ku jira sakeelkan salka weyn ee xumbaynaya waxani muxuu yahay su'aalahan oo idin ayaad isweydiinaysaa ee haddii aad tahay wiil dooqiisa uu yahay hablaha cadcad ee dhaldhalaalka badan fariintan iyo muuqaalkanba adiga ayuu ku qoseeyaa ee nala soco goobtu waa magaalada Boosaaso wiilkan dhalinyarada ah ayaa ku howlan shaqo maalmeedkiisa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay inuu sabab u noqon karo dhaldhalaal si degdeg ah ku qayrmaya balse in badan oo kamid ah dumarkeenu ayba aaminsan yihiin dhalanteedkaas oo ay run moodaan dhowr nooc oo ah daawooyinka la isku cadeeyo ayuu intuu isku daro kadibna sidii cajiinkii u qasaya dabcan waxa laga yaabaa maadooyinka ay ka samaysan yihiin daawooyinkan inaysan isqaadan karin haddii qofka uu marsadana uu halis caafimaad kala kulmi karo balse intaan arintan si aad ugu sii talax tagin ragga Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyay inay sabab u yihiin isbeddelka gabdhaha ee midabkooda kadib markii dhalinyartu ay ku jabeen dhinaca gabdhaha cadcad oo xitaa iljaleeci waayeen gabadha madow marka ay jidka la marayso gabar cad arintaas maxaa ka jira wiilow tan kale gabdhow idinkuna maxaa idin waalaya oo aad midabkiina u bedelaysiin ma idinkaa rabooday kaliya inaad midabkiina cadaan u bedeshaan mise wiil dartiis ayaad sidaas u samaynaysaa sakeel af weyn ayuu ninkan la soo kala baxay daawooyinka oo dhanna way ag yaalan marba mid ayuu ka fiiqaya daawooyinkan uu isku dardaraayo marka la isku dardaro oo hal laga sameeyo waxaa loo yaqaanaa qasqas sida ay haween badanba ii sheegeen qasqaska waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin gabdho badan oo Soomaaliyeed ay horay u arkeen oo ah in gabadha cadaanna aysan noqon madowna aysan noqon dhaxduna ay ku baaba'do oo wajigeedu uu hareeyo fiman qof bini'aadana uusan ku dhiiran karin inuu ishiisa la sii raaco waa caqabad weyn waayo waxay caqabadaas ka soo gaartay wiilkan iyo wiilal kale oo Soomaaliyeed oo tiro badan oo sidan ku dhaqi kara daawooyin walba waxa ay leeyihiin qaab loo isticmaalo oo haddii qaabkaas qaab ka duwan loo isticmaalo waxa ka dhalan karta saameyn weyn si fiican u fiiri muuqaalkan waxa uu isku dardarayo ayaad ku aaminaysaa wajigaaga labeenta saaran inaad marsato ujeedkaaga ka weyn inaad soo jiidato wiil wax kale miyaa jira ma naftaada ayaad hoogaysaa oo aad khatar gelinaysaa adiga oo raadinaya inaad midab dhaldhalaal badan heshid ku ilaahay kuu sameeyay ee marka ay qoraxda ku dhacdo saliidda soo burqanayso ee qoraxdii iyo saliidda wajigaaga saaran marka isku dhacaan sidii midabka shukulaatada kale u ifay inta ka orodid miyaad cadaan sidaan laga raadiyay u shartagaysaa wala hadda Soomaalida heer waxay maraysaa ay mahma ahaan u isticmaalaan arimahan taagan oo waxa lagu leeyahay marka la arko qof madow doqon iyo habeen ayaa madow waa wax laga ma qaban karo arintan oo xaalku farawa uu ka baxay culimadii waalidiintii dhalinyaradii iyo guud ahaan qof kasta waa uu ku qancay waa taas sababteed inaad weyso ama tira yar un aad ka aragtid gabdha madow barihii dambaba waxaa iyadana soo baxay dhinaca kale rag lagu sheegay ku dhooda inay ku tuurtaan oo midabkoodii uu isbedelay laakiin fariinteena maanta waxay daaran tahay gabdhaha Soomaaliyeed oo aan la xijeclo badan ka qabo kuwaas oo aan uga digaayo waxyaabaha ay ka gadanayaan goobaha la isku qurxiyo si fiican ugu dhug lahaada haddii aad u malaysid wax kasta oo lagu geliyo gasac korna lagaaga soo xiray wax muujinaya in waxan uu yahay wax international ah oo lagu soo sameeyay caalamka horumaray dhibaatadan oo kale ayaa dhaxda ka gali doonta maalin kastana muraayada ayaad inta istaagtid isfiirin doonta adiga oo kaliya arki doona humaagta wajigaagii oo sii baaba'aya quruxdiisii oo uu ku hor taagan yahay wax u muuqaal eg horor cabsi badan oo hadhow aad ka shalayn doontid in qof bini'aadana aad hor fiirisid ama hor istaagtid dhahad waa ikana in shareer kaliya ayaad ku seexan doontaa kuna soo kici doontaa ee ka taxadar halistan